قال وحول آبه بينما أنا مضطجع حل أن أنو تشيفه في المسجد مسجد نام حدوديه على بطني بقبقي بربر أنو تشيفه حبط كان لك عندي وجهي أنا لك آديه إذا رجل وابننو يحركني رقاقنا برجلي عن سنين بابلقت يقول طابطي يقول توسي فقال وحيدي نينك أصقعها إن هذه قاب كانت جيفته دجعة قاب جيف قاب لوسح يبغضها الله رب النعبي وقاب رب النعبي وهي دجعة سهي أما هي قاب كانت جيفت إلهي متشعر رب النعبي قال سحابي وحلف فنظرت نينك لقت يقول توسين هيبان إيغي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبا رسولك إلهي رسولك إلهي حديث قصير برسولنا قد مرتين أيغو أصحاب الصفر دور فربضان بالنبي سوك حيقولوا عائشة كاني هو يدن بالنبي يقول wax raashina ma haysa raashin bay u keento karisay kadib nabigu biyo ma haysa biyo yaanay u keento wax heli kartay markay casheeyeen oo marti galeen uu nabigu hadaa doontaan halkan iska seexda guriga iska seexda aniga caasho meel u baratanaynaay hadaa doontaan masjidka seexda markaas ay nabiga Allah masjidkan seex mar hadaan aragnay ku dhibi maynay masjidkan u seexanayna masjidkan waan isdaadeen saxaabigan diqfaa markii salaadu subaxay soo dhowdahay welina aysan dilaacin buu nabigu soo baxay buu marka diqfo saa u jiifo oo dhacdiid u jiifa mise beerbeer baa leeyahay maxaa loo jiray dhacdiid misaan u ahaa waaye asoo jiif cabe u jiifo nabigu ku soo baxay nabigu markaas lugta ku toosiyay wuxuu lugta ugu toosinayaa dhaqan buu nabigu u lahaa calayhi salaatu wasalaam hadduu ku soo baxo ruux xabad u jiifa oo miskiisu mara fiican saarayn inuusan gacan ku taabin lugta ku taabto lugta ku toosiyo macnaha miyaad fahanteen ruuxu sidaas u jiifaa rag iyo dumar ku doona ha noqdo sunnada Soomaali way yaqaanaan dumarku waa lagu dilaaba fudud haday saa u seexato lagu arko beerkaba laga xashirin bar kuraydaaba dhaamay waad garanaysaan bay la tahay haddii busto weyn iyo wax adoo dhan ku qariyo wax qaar ka dambe ka saaran yahay dhib ma laha laakiin haday mara khafiif iyo qamiisi macawista ku seexatay miskahaada iyo qaarkaada u muuqdo oo dadkii guri xumaa wax ka dayay karaan nabigu gacan kuma laaco ruuxa asaga wuxuu sameeynaya lugtuu nabigu kugu toosinaya haddaad foorarsato waxaa lagu dhihi karaa wadaadku guri baa galay saloma dhigi karo ilaa hadda waa la afaysan yahay hawshan ka hadla waad fahanteen baylata hoosoo ma degi karintaa ka badane adoo taaganoo saa u qotoma inaad lugta ku toosisay marka yaa salaama oo roon oo aamin ah mar haddaad foorarsato wadaadku muxuu ilaa lagu dhihi karaa ninkan bariyaha weyn buu u boga bariyihiisa lagu dhihi karaa ya jebsi ma jebsi ma شيخ عبد الله حق هذا سويد ابن شريد الثقفي وقضية شرحي ونوفى وحجري كان إذا وجد الرجل راقدا على وجهه ليس على عجوزه شيء ركضه برجله نبي دقن قاصب على هذا دون نبي وارك الروح سا أتشيفا وحبل حبل أتشيفا قال كيس دمنا مرفي عن سارين نبي يقول لقطه كله فنشري الله عن أنا إياه مد الله بعد أعرافتا كلا دقن كلا دوان عند الصومالي أكتوضو روح لقها لقو تابتو واميل كدع وقورسي دقال بابا تسور رغم با كل انتان كور قبو سيدا ما الصومالي لكن عند العرب عيب معها واقع يمن تقيبان أرقون ليابا أنه ميل شفنو أرضو فربضان با وداد أبو حاتم لورنجريو مؤذن مساعد كان مسؤول كاي مركز كاسوكعي رقودن مid weyn iyo mid saqar lugta ku toosinaya waagi hore marka dhowr kubad igu horeysay wala yaabi jiray ya allah hada waa ku warsida dad sax ma ee xul عندنا ما باس ما في باس انا waatan dib ma laha idinku ma dibsataan hada Soomaaliya waa dibsanaa ninku nagu toosiya bilaa waa yaqaana uu yaabay annatana la yaabarahay arafta kala duwan toosh in lagu qabto ninka Soomaaliya uu ka dhiman haya عند العرب واسك عادي هذول اللي قلت لك من ده كذا قبل صاص دن كمالها
kii lagu qabto xataa ma xanaaqay wuu sii duubeen ama wuu iska kici wartooshka maxaa noogu qabatay Soomaaliya waa dagaal xaajayba noqonba dhaqamada ayaa kala duwan taasna ogaado waxba aku si mashquulina rawi Abu Daawud baa xadiidka wariyay Ibn Maajah waa wariyaa wuxuu oga tagay imaamku ma garanay rawi Abu Daawud baa xadiidka Ibn Maajah wa Nasaa'i fi al-Kubra bi isnaad sahih sanad sahiha ayuu ku wariyaa sanadka sihhadiisa xoog muran baa ku jiro ikhtilaaf fi al-isnaad baa jira اختلاف في الاسناد حديث كان علصا ku keeni maayo waxa la isku maandhaafay waliba khilaaf culus ka taagan yahay magaca wiilka Yaciish ah iyo aabihi oo tiqfaan magaciisa intaasoo qaab loo sheega taa marka cilaas ma laha teere isaga Yaciish jahala ku jirta Yaciish waa taabici kabiir ah laakiin tawthiq fiican looma hayo inuu majhuul xaal yahay ba marka loo badan yahay laakiin sukuut Abu Daawud iyo tawthiq Ibn Hibbaan يحديث شواهد له يا طبقه يعيش السريسه يا روايته عن ابيه انها سنتي لسوق جيب علوم ميل مريين ان بدون نوي با كبير ركب ميل مرني اي كل سنتك صحيح مع جلي ابو داود باوريه وسكت عليه بالتالي وروايه ابن عن ابيه وويل ابيه حديث قادني صدح والرقائق هي الترغيب والترهيب اسكوماسي ادكي مساله انت وحادير طبقتي سوء هي من كبار التابعين توثيق ابن حبان وسوء لا باس بها انت ابو هذا حكام في شواهد فربنا حديث كله وحكمده حديث ابي امامه وحوق بدن باب كل نفس الشيء ابي امامه الباهلي عند البخاري في الادب ابن ماجه ان يكون وانا حديث حسن حديث ابي امامه الباهلي وحكى والله ماذا حديث السويد ابن شريد الثقف هذا يدين شيء يسوونه او صحيحه اسقونه مرسل باجرا سوغنا حوق بدن او من عن عم شريد laga warinayo oo mursal ah oo aabihi meesha ka saaray cinda Ahmad ahadiitha marka la sugeeyo marka baabku baab sugan oo aad iyo aad u qiimo badan weey marka idan xabad looma seexdo weey xabad nabigu wuxuu yiri waa qaab seexad ilaahay nacab yahay carruurta waa in laga celiyo dumarka rag lab iyo dhadigba waa laga celinaya marka ruux lagu arkana waa in la toosiyo lugta lagu toosiyo wadada Soomaaliba ha aado sanka taago maxaa lugta igu toosin waad mudatay baa leeyahay maxaa jira maxaa xabad ugu seexatay oo sida ilaahay nacba aad ugu seexanaysa